fadhigii 9 ee shirka golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shirgudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ceerro ayaa maanta ka qabsoomay qasiga madaxtooyada. Qodobada maanta lagaga hadlay fadhiga 9 ee shirka golaha wasiirada waxaa ka mid ahaa amniga, nabadaynta Ceerigaabo, shirweynaha maalgashiga Soomaaliland, carwada iyo shirka tiknoolajiyadda Soomaaliland, qabiyo qoraalka siyaasadda qaranka ee dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo ansixinta xeerka kalluumaysiga Soomaaliland. ugu horeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Mudane Cabdulle Maxamed Carab ayaa xubnaha golaha wasiirada waxa uu siiyay warbixin guud oo ku saabsan xaaladda amniga dalka isagoo xusay in amniga guud ee dalku sugan yahay isla markaana aanay jirin wax qalalaase ama xasilooni darro ah oo ka jirta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland marka laga reebo faldambiyada maalinlaha ee ka dhexdhaca bulshada. Dhinaca kale wasiir Cabdulle waxa uu sheegay in guud ahaan 6 gobol ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka jirto deganaansho siyaasadeed oo buuxda. Geestiisa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Mudane Cusmaan Ibrahim Nuur Afkaab oo ka mid ahaa gudidii golaha wasiirada ee madaxweynuhu u diray arrinta gogosha nabadda ee Ceerigaabo ayaa si qoto dheer uga xog waramay heerarka kala duwan ee ay gogosha nabaddu soo martay, caqabadaha ay la kulmeen, qaababka ay uga gudbeen hanaanka ay isula jaan qaadeen xubnihii ka socday xukuumadda, xildhibaanada qaranka, gudida nabadda iyo xubnihii uu soo xulay Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaam. Wasiir Cusmaan Afkaab waxa kale oo golaha uga xog waramay kulamadii ballaarnaa ay la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Sanaag isagoo hoosta ka xariiqay sidii milgaha lahayd ee guud ahaan bahaldoorka waayeelka, aqooyahanka, hoggaanka dhaqanka, waxgaradka haweenka iyo dhalinyaradu ay uga qayb qaateen nabadda iyo walaalaynta bulshada wada degta gobolka Sanaag gaar ahaan Ceerigaabo. Wasiirku waxa uu golaha u sheegay in gudiyahan ay soo gudbin doonaan warbixin qoto dheer iyo talo bixin la xidhiidha qaabka ugu habboon iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaato si loo adkeeyo nabadda iyo wadajirka bulshada gobolka Sanaag. Wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo horumarinta warshadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Siciid Maxamed Buraale ayaa isaguna xubnaha golaha wasiirada waxa uu siiyay warbixin la xidhiidha qabashada shirweynaha qaran ee maalgashiga Soomaaliland oo 2 ilaa 3 November 2025 ka qabsoomi doona caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Wasiirku waxa uu golaha u sharaxay ujeedooyinka muhiimadda iyo qorshaha guud ee laga leeyahay shirweynaha isagoo tilmaamay in arrintan ay tahay fursad muhiim ah oo lagu soo bandhigayo kheyraadka dalka iyo fursadaha maalgashi ee laga heli kara Soomaaliland kuwaasoo la doonayo inay soo jiitaan maalgashadayaasha gudaha iyo dibadda. Sidoo kale wasiirku waxa uu xusay in shirweynuhu diiradda saari doono kaabayaasha dhaqaalaha, warshadaha gudaha, kheyraadka dabiiciga ah sida macdanta xoolaha, beeraha, kalluumaysiga iyo suuqgeynta fursadaha ganacsi ee yaala Soomaaliland si loo kobciyo dhaqaalaha qaranka loona abuuro shaqooyin badan oo dhalinyarada dan u ah. Wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Mudane Jamaal Maxamed Jaamac ayaa isaguna xubnaha golaha wasiirada waxa uu uga xog waramay habsami u socodka carwada tiknoolajiyadda Soomaaliland taasoo si guul leh uga socota caasimadda Hargeysa. Wasiirku waxa uu sheegay in carwadu ay si habsami leh u socoto isla markaasna ay qayb ka yihiin dhammaan badanayaasha tiknoolajiyadda jaamacadaha dalka, shirkadaha ICT-ga ee dalka, hay'adaha dawladda, ganacsatada iyo dhalinyarada hal-abuur kale kuwaasi oo soo bandhigay horumarka iyo hal-abuurada dhinaca tiknoolajiyadda ee dalka ka jira. Wasiirku waxa xusay in tartankii dhalinyarada ee xagga hal-abuurka tiknoolajiyadda casriga uu si wanaagsan u socdo, cidda ku guulaysatay kaalinta koowaadna la siin doono abaalmarin madaxweyne oo uu guddoonsiin doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. geestiisana wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Yaasiin Maxamed Faarax ayaa xubnaha golaha wasiirada uga warbixiyay qabiyo qoraalka siyaasadda qaranka ee dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland. Wasiirku waxa uu golaha u sheegay in curinta siyaasadda qaranka ee dhalinyaradu ay tahay tallaabo muhiim ah oo dhiirigelinaysa horumarka dhalinyarada Soomaaliland isla markaana qeexaysa istiraatiijiyadii lagu qaban lahaa siyaasaddan iyada. Wasiirku waxa uu xubnaha golaha wasiirada ka codsaday inay si buuxda u soo akhriyaan nuqulka siyaasaddan xur ahaan iyo ujeedahaanna ay ku soo daraan wixii ay u arkaan muhiim. ugu dambeyn fadhiga 9 ee shirka golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shirgudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagu ansixiyay xeerka kalluumaysiga Jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo noqonaya xeerkii 6aad ee ansixiyaan golaha wasiiradu muddadii ay jirtay xukuumadda wadajir iyo waxqabad. Madaxweynaha ayaa xeerkan geliyay cod gacantaaga waxaana golaha fadhiyay 9 xubnood oo ka tirsan golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. dhammaan xubnaha golaha wasiirada ogol xeerka kalluumaysiga iyo kheyraadka qaranka oo ka kooban 47 qodob in sida uu yahay ee lagaga dooday ee la isku soo guray loo ansixiyo inta ogol gacanta ha taagto. dejiya wasiirada diidan in xeer kasta lagu ansixiyo gacanta ha taagay. dejiya wasiirada ka aamusay gacanta ha taagay. alla dejiyo waxaa jooga
sagaal soddon wasiir hal wasiir wuu diiday hal wasiirna wuu ka aamusay 730 way u codeeyeen sidaas uu ku ansaxay xeerkaas. Cabdicasiis Ciidiid cilmi warbaahinta qaranka qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa.